wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Saleema Warsame Guuleed iyo wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa maanta ka qayb galay kulan lagu soo afmeerayay tartankii dhinaca kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad uga socday gudaha magaalada Caynaba. kulankan ayaa waxaa koobkii si rasmi ah loo gudoonsiyay kooxda Somtel oo iyadu ku guuleystay tartankaasi dhinaca kubadda cagta kooxaha heerka koowaad uga socday magaalada Caynaba. Sidwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad Yaasiin Cali Axmed oo ah garsoorihii daadihinayay intii tartankani socday maayirka magaalada Caynaba iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Abubakar Shida Cali ayaa ka xog waramay marxaladii kala duwan ee tartankani soo maray. kooxda koobka guuleysatay oo ah kooxda ku ciyaarta magaca shirkadda Somtel dhammaan cid kasta oo ka soo qayb qaadatay koobkaas tartanka waxaa dhigay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood waxay ciyaaruhu ka socdaan oo hadda isku mar halka laga wada bilaabay Oodweyne ama Daadmareed Saraar iyo Gabagabeeyay oo kuwa inta wasaaradda qabanaysa 6 gobol hore iyo Gabagabeeyayna oo xiriirka dhigaya marka halka waxay noo yaala abaalmarinahaas oo guddoonsiin doono ciyaartoyda ku guuleystay iyo kooxda koobka ku guuleystay أنا فرصة كفايدة وقت كنا نقول كوبية هاي وحنا كنا نقول ما هذا علنا جودهان وشركة وزارة الدنيا عيارة يا جاسمة جود وديق عصب كش بوزارة إنك كو عيارو وحلا جدير على قبيلة ده وحكلوا لك جدير على تهريبته وحكلوا لك جدير على إن هذا الحاجة شكل كجشو هدي عمل عنو أي كسو فوت صار تقول كود نقطة إن هتخسر عشو وحنا نقول فرحنا هاي وسيرة ديجان كو سيدا أي نغلش غيان annaguna haddaanu nahay dawladda hoose horumarkiina aanu ka shaqeynaynaa insha Allah ciyaaraha ka qayb gali doontaan baan idinka taageeraynaa koobabkaanu idin qabanaynaa horta markoo dhalinyaradan reer Caynaba ee gobolka Saraar aad iyo aad baan u salaamayaa boqolkiiba boqol waan taageersanahay iyaga iyo sudugahooda halka kaga jiraan kubadda cagta annagu waynu ku cusbahay horta muddo dhalinyarada ka mid ah ciirun bay ku taale kubadda cagta waa ciyaar jiray waxa isla dib u bilow wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Saleema Warsame Guuleed oo halkaasi ka hadlay ayaa u hambaliyay kooxda Somtel iyadu ku guuleystay tartankaasi kubadda cagta waxayna wasaaradda ciyaaraha gobolka Saraar ku amaaneen dadaalka ballaaran ee ku jirto dardargelinta arrimaha ciyaaraha gobolka Saraar ilaahay banu mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa cid kasta oo hawshan quruxda badan ka soo shaqeysay ama iminkaba ku hawlan oo kow ka yahay isduwaha gobolka oo runtii ah nin firfircoon oo xilkasa oo hawshiisa mar aan ka daalin runtii annaguna waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu koob aniga wasiirku mid gaar ah mar idin qabano waan ku faraxsanahay in maanta dhalinyaradii gobolka Saraar oo midaysan ay maanta xafladan joogaan ciyaar ka soo baxeen koobkii la guddoonsiinayo mid kale loo ballamayo ballanqaadkii runtii maayarkana waa soo dhaweynaynaa idinkuna aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin haddaad runtii midnimo iyo magac iyo idinkoo aan qabyaalad lahayn haddaad ku jirtaan ciyaarihii oo doonaysaan waliba inaad heer qaran u safataan jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland